wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Puntland ayaa waxa habeenkii xalay ku soo gabagabaysay degmada Buuhoodle gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Buuhoodle iyadoo dhankan halka lagu dhaariyay golihii deegaanka degmada Buuhoodle oo dhammaan 26 xubnood 5 xubnood ahaayeen haween ugu dambeyntii ayaa halka wax ku guuleystay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka Sheekh Maxamed Cabdullaahi iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Cali Qowdin ugu dambeyn ayaa halka wax ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda dawladda Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Damacad oo halka hambalyeeyo dardaar u jeediyay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo golaha deegaanka waxaa ku tartamayay labada musharax ee kala ah Cabdifataax Cali Cawi iyo Sheekh Cabdullaahi Maxamed sida la xusayba xubnaha golaha deegaanka sida loo socono aan shaacinay waxay ahaayeen 25 xubnood xubin way maqan tahay oo magaalada ka maqnay 24 xubnood ayaa soo xaadiray 24 xubnood oo soo xaadiray markay codeeyeen xubin ka mid yihiin codkeedii waa khasaaray 23 cod way codad kala tiriyay waxaan rabaa marka inaan idiin sheego natiijada ninka la yiraahdo musharax Cabdifataax Cali Caawin wuxuu helay 10 cod halka xildhibaan Sheekh Cabdullaahi Maxamed uu helay 13 cod halkaas waxaa ku guuleystay gudoomiyaha degmada Buuhoodle ahna gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Buuhoodle xildhibaan Sheekh Cabdullaahi Maxamed waxaanu leenahay hambalyo Allah u fududeeyo waxaan ku dhawaaqaynaa natiijadii cidii ku guuleysatay gudoomiye ku-xigeenka degmada Buuhoodle waxaa wareegii labaad u tartamayay Cabdullaahi Cismaan Xaaji Cabdi iyo Maxamed Cali Qowdin labada musharaxiin oo tartamay wareegii labaad ku tartamay waxayna kala heleen xubnaha codeeyay waxay ahaayeen 24 xubnood oo golaha deegaanka hal cod waa halaabay 23 natiijadoodii ayaa halkan ku sheegaynaa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Cabdi wuxuu helay 7 cod halka Maxamed Cali Qowdin uu helay 16 cod waxaan halkan kaga dhawaanaynaa marka in Maxamed Cali Qowdin uu ku guuleystay gudoomiye ku-xigeenka degmada Buuhoodle aana gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle ugu dambeyntii ayaa halka waxa ka hadlay xildhibaan ka socda dawladda Puntland iyo maayarka degmada Buuhoodle qaal oo halka hambalyeeyo dardaar u soo jeediyay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Buuhoodle xildhibaanada golaha deegaanka dhamaantood si niyad baan ugu hambalyeeynaa waxaan aad ugu hambalyeeynaa labada gudoomiye ee dhalinyarada ee noo soo baxay runtii waa u baahannahay energy cusub dhalinyaro cusub wadankooda u shaqeeya insha Allah waxaan ka rajeynaynaa in loola shaqeyn doono haddii Ilaahay idmo cuqaasha iyo odayaasha Buuhoodle oo runtii anagu halkan muddo dheer joognay ay suura geliyay inaan ku guuleysano ama lagu guuleysto hawsha halkan ka socotay muddada dheer ay ahayd in maamulo kala gedisan ama waxyaabo kala gedisan oo xagga maamulka ah halkan laga qabto ay ugu muhiimsaneed in la dhiso golaha deegaanka mudanayaasha guuleysta waxaan leenahay ilaahay xilkiina ha idinku asturo kuwa laga guuleystayna waxaan leenahay waa kubad waa barcad iyo barmadow berri baad guuleysan doontaan meelaan dawladda hoose joogin oo aan golaha caawa la dhisay joogin hay-adaha adduunku ma tagaan fiirinay natiijada maanta aynu gaarnay caawa waa mid aad iyo aad loo Najeem Xamuud Salaad telefishinka caalamiga bulshada TV magaalada Buuhoodle